shirkan jaraa'id galabta wuxuu ku saabsan yahay afkimbi ama iskuday ama weerar annaga loo soo qorsheeyey galabtana aanan bilaaban oo markii saddexaad galabta ahaa ina fashilmay dadka reer hiiraan ay iska diideen dulmigii lagu samaynayay cadaalad darradii maxamed cabdi waare iyo kooxdiisu ay lamagalaay ka soo maleegayeen shakhsiyaad gaara oo qolana ajnabi yihiin soomaalina ay sheeganayaan qolana ay reer hiiraan yihiinna ay ku dhex jireen ama ay ka dhex muuqanayeen amaba hadduu rabo maxamedkan laftiisu u weynaay alxamdulillah ilaahaan uga mahad celinaynaa dadka reer hiiraan uga mahad celinaynaa annaga waxaan ka hadlayno wax reer hiiraan waaye waxaan difaacaynaa wax reer hiiraan waaye waxaan ka qaylinaynaa dulmi lagu samaynayo reer hiiraan waaye waxaan beesha caalamka u sheegaa oo dawladda soomaaliyeed u sheegaa oo dadka soomaaliyeed u sheegaa oo waxgaradka reer hiiraan u sheegaa oo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta reer hiiraan u sheegaa oo xildhibaanada iyo wasiirada reer hiiraan u sheegaa inay talada reer hiiraan ama talada hiiraan u yimaadiin hiiraan uga tashadaan dal iyo dibad ciddaan laga maarmin loo yeero cidday talada hiiraan wax kulagu timaado hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadday oday tahay iyo hadday ugaas tahay halkan la iskugu yimaado reer hiiraanna tashadaan annagaa joognay ee dadkii joogay la warsado wixii meeshaan ka dhacay 2 sano iyo 6 bilood ee hirshabeelle ay jirtay wixii reer hiiraan lagu samaynayay xudgaal u noqdaan haddii reer hiiraan ay qaldan yihiinna ay qabtaan haddii reer hiiraan saxan yihiinna ay garab istaagaan talada reer hiiraanna ayagaa iska leh shalaa laga maroojiyey ayagoo qaylinaahe dib uga marooji mayne wixii horoo dhacaynaa balajeesaan ka bixinaynaahe ama hirshabeelle iyo reer hiiraan wax ugu hali waa in dawladda soomaaliyeedoo dalka ka wada mas-uula ee wax ugu taallo yacni ay soo faragelido aniga saasaan xal u arkaaye uma arkaa xal in amisom iyo etoobiya iyo laysku soo weeraro laysku shirqoolo laysku handado mar kasta intaasoo jeer isku day dil iyo shirqool iyo maleeg iyo ummadda in la sii dhibaateeyo oo intii horey looga dilay inaan hay laga sii dilo maxamed cabdi waare lamagalaay u fadhiyo uu ka shaqeeyo dhibaato ma ogiyo uusan wanaagna uunu ku soo kordhin gobolkan qof qaada karta iyo qof yeelaysaa uma jirto annagana dhimashadaayna